Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal qodobada bandhiga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah farmaajo oo war ka soo saaray doorashada gudoomiyaha golaha shacabka kuraasta ugu dambeeyay ee ku harsan Hirshabelle oo la shaaciyay doorashada gudoomiye ku-xigeenada ee golaha shacabka oo maanta lagu wado in lagu doorto Muqdisho Ra'iisul Wasaare Roble oo ka hadlay doorashada gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe oo loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka fadlan taa ku cusub tahay subscribe inoo saar YouTube-ka page-kana follow leh mahadsanid isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowno xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ku guuleystay kursiga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya doorashadani oo ka dhacday Afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa wareegga ugu dambeeyay ku tartamay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo Xasan Cabdi Nuur guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada la kala helay Xasan Cabdi Nuur oo helay 89 cod Aadan Madoobe oo helay 63 cod ee guushna ku raacday Sheekh Aadan Madoobe